deegaankii awowgay iyo abtiyaashii baan maanta maaragtay ku suganahay farxadeyda lama soo koobi karo geelayga waa la gudoonsiiyay alxamdulillah waxay ahayd madal farxadeed oo nooceedu ku cusub yahay guud ahaan geeyga Soomaalida goob kulmisay odayada labada arda ee ka soo kala jeedaan lamaanaha dhawaan iscalmaday ee kala faneed dacaanka Safiyo Tusmo iyo saygeeda ganacsade Cabdullaahi Yuusuf Aare waana dooxada taariikhiga ee Harawa ee magaalada Arabi halkaasi oo maanta si rasmi ah faneedda Safiyo Tusmo loo gudoonsiiyay 120 geela oo ahayd meherkeega uu dhawaan ku mehersaday saygeeda Cabdullaahi Yuusuf Aare madashni farxadeed ayaa waxa ugu horeen ka hadlay maxamuud Aare Miicaad oo ka socday dhinaca saygeeda Safiyo Tusmo waxana uu si sharaf iyo milga ku dheehan tahay 120 geel ugu wareejiyay Iga Xuseen oo isaguna geelani u gudoomay gabadhooda Safiyo Tusmo oo dhinkeeda ka socday waa kuwan iyo geelaasi kala gudoomaya hadallo kala duwan oo mahadnaq u badanna goobtaasi ka soo jeedinaya anigoo maxamuud Aare Miicaad ahna Cabdullaahi Yuusuf Aare adeerkii geeli 120ka halaad ahaayeen gabadhii Tusmo ku meherinay ayaan halkan gudoonsiinaya gacalkii laha yaan halkan gacalo geelna waa inaad iga gudoontaan 120kii halaad ba halkan aan idin marinaya imika iyagoo magacadoonidiina wali baan idin tirinayo ya geelay waa inaad gudoontaan waan gudoonay gacal dhalinyaro waa yeelba saaxiibkii dhawal oo gabadha maalintii la meherinayeeno goobjoog ka ahaa duqaydii gabadha u joogtay meherkeedii ahaa oo maalintii yiri codkiisa fagaara aan joogay oo meher inta leey ka dhacwayay kow laakiin maasha lagu bixin doonana waanu joogi doonaa yiri nasiib darro arrin aw yeeshay maanta ugu suuro gali weeday inuu yimaado anaana geeli bixiyay anaana isagii halkiisii ka wakiilaha waliba wakiil uga ahanaya waan gudoonay geeli Tusmo lagu meheriyay 120kii halaad ehelkiina waan gudoonsiino iyaga u gudoomay waligii gabadha u gudoomay inta waa inta marka koobaad waan salaamay hadde boqorkii iyo boqoradda waa aroos farxad badan la weeyaan aroos farxad badan la weeyaan Soomaalida dhaqanba uma hayntii yani 120 halaad oo gabadh lagu meheriyo dhaqanba uma hayna waa shay cusub farxad daraaddeed weey anigoo Iga Xuseen cilmi ama kaariga degmada Harawa la talinta nabadgelyada marka yani arrintaasi waa arrin culus oo sharaf iyo wanaag leh waana ka gudoomaynaa waana gudoonay sidoo kale waxa isaguna goobtaasi goobjoog ahaa Sheekh Cilmi Naxwi oo isagu ahaa qaadiga ama Sheekhi Cabdullaahi Yuusuf Aare u meheriyay marwadiisa Safiyo Tusmo oo dareen farxad ku soo dhaweeyay geelini maanta kala gudoomiyeen labada arday ka soo kala jeedaan lamaanahani dhawaan iscalmaday isagoo sidoo kale halkaasi ka xusay in 20 geel oo kamid ahaa geela maanta la gudoonsiiyay Safiyo Tusmo ay ugu deeqdeen maskiid dhismihiisu ka socdo deegaanka Arabi waxana uu yiri anta sida Xaaji Maxamuud sheegay halkan geeli Safiyo Tusmo lagu meheriyay meherkeega ahaa 120kii geel ahaa ayaa lagu gudoomay oo lagu kala wareegay cidii maarksa lahaydna ay sida u gudoontay waxaan anigu ku darayaa oo Safiyo Tusmo waxay sheegtay masaajid baa ka socda magaaladan Arabi masaajidkii ugu weynaa ee maarksa centerka ku yaalay MC jaamaca ahaa waa la dhisayaa dhismaha ka socda Safiyo Tusmo waxay sheegtay 20 geel inay ugu deeqday dhismaha masaajidka oo kamid ah 120ka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka aqbalo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo runtii ku dayasho mudan waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay in dhismaha masaajidka halka ka socdana aad ka qayb qaadato oo meherkaagii qayb kamid ah aad ku bixiso intaas aan ku daray aad iyo aad baad mahadsantii kuma ekeynta soo galiya balse waxa madashani farxadeed ku sugnaa odayga soo jeeda deegaankaasi oo iyagu marxaati ka ahaa geele maanta kala gudoomiyeen labadan ardaa waxana haloodii kamid ahaa halkan waxaan ka cadeynayaa anigoo Maxamed Ismaan Yuusuf oo qabiilahan marka la sheegana Makeeleere oo Makaayila inaan dooxa rukaysan lagu gudoonsiiyay ehelkii ayaan goobjoog ka ahayn sidaasaan cadeynaynaa in 120ka loogu mehershay xay ahaayeen oo gudoonsiiyay Maxamuud Aare Xaaji Maxamuud Aare ugu dambeyntii waxa goobtaasi ka hadashay fanaanada caanka Safiyo Tusmo oo dareen farxad ku soo dhaweysay in maanta dooxada taariikhiga Harawa lagu gudoonsiiyo 120 geel oo ahayd meherkeeda waxana ay tiri maanta waxa Ilaahay mahadi ah inaan joogo guriga hooyaday
beerihii abtiyaashay abtigay maxamuud aarami cad hooyadii walaalkeed oo maanta garabkayga taagan geelaygina maanta isagoo gudoonsiiyey halkani waa dhulkan anoo yar ku ciyaari jiray harawa waa meel hodan ah oo ah meeshaan ku koray geedaha yar gadaashooda hooyaday ku aasan tahay Allah u naxariiste waa hoomkaygii waa wadankaygii waa xaweyaan deegaankii abtiyaashay maanta aniga farxad iyo xasuus aan la soo koobi karin ayay tahay caruurnimadeedii baan xasuustaa hooyaday macaan baan xasuustaa deegaankii awowgay iyo abtiyaashay baan maanta maaragtay ku suganahay farxadeeda lama soo koobi karo geelaygii baa la gudoonsiiyey alxamdulillaah abtigay macaan hooyaday walaalkeedu maanta ilaahay igu simay isagoo caafimaad qaba inaanu saaka boorama ka soo wada 120 halaadna gacanta iga saaray alxamdulillaah ummadda Soomaaliyeed fiidiyan daawan doontana waxaanu leenahay waad mahadsantihiin waa Mustafa Caraale dooxada Harawe ee magaalada Araabi walaal waxaan aaday meesha geela lagu dhaqo oo la yiraahdo in Harawa oo abtiyaashay deegaankooda waxaana la gudoonsiiyey 120 halaad oo Maherkeedda ahaa waxay ka tirsan tahay degmada Dambal gaar ahaan qabaleyga Araabi dooxada Harawa la yiraahdo halkaas baan tagay la iguna gudoonsiiyey maxaan ku rahdaa 120 neef oo geel ah oo Maherkeedda ahaa waa tahay waa ku hambalyeynaa Safiyo marka hore marka xigana bal horta markii hore meherkan maadaad dalbaday mise wax oo lagu gartay uu ahaa wallahi horta anigu dadka waxaan meherka qaaliga iyo xoolahan iyo qof iska reeb dhaqan miyiga iyo geel iyo waxa iska jecel waan ahaa laakiin meher kamid ah horta aanu dalbaday oo idhi 120 ilaa laga dhigo amba intaasaan dalbaday ma ahayn wuxuu ahaa mid uu maaragtay ninkayga isaga ka timi oo isaga uu maaragtay xagiisii ka timi boqolkii geelaha haatan aad soo hanatay oo gacanta lagu soo galiyay boqolkii marka adiga san la socono Safiyo waxa degan tahay Mareykanka iyo dhankaas ma diyaarad bad saaranaysa geeli mise halka un bay ku joogayaan horta de walaal geelini beeru leeyahay oo daaqsin buu leeyahay oo ceel uu ka cab leeyahay oo dad shaqaale ah oo ilaaliya ayuu leeyahay dadka awalba oo nariska u ahaayay geelay iska lahaana ma aha dad remiye ah saad cajalada ka daawateenba waxa weeyaan dad caan ah oo la yaqaano magaalooyinka waaweyn ee Jigjiga iyo maxaan ku dhahay halkan iyo Djibouti iyo kule maaragtay business kule geeloodana awal de waxa dhaqaaleyn jiray oo ilaalin jiray dad shaqaale oo ay u qabteen kuwii un baa imikana dhaqaaleyn doono oo bartiisii un buu daaqi doonaa midan aanu raranayo aan baan meel tagay ma haday ku suura gali lahayd Mareykanka ma geysan lahayd maadaama deegaankaaga uu xagas yahay wallahi horta Mareykan inaan geel geeyo uma quudeen maayo de Mareykan meel geel laga qiimeeyo maaha waana meel qabow oo de maba noolaadeenba marka mar walba Afrika un baan u doori lahaa mooyaane de meel uu ku dalgaran waayo oo hadhowto de dib uga timaado ma geeyeen waa tahay Safiyo ragga qaar waxay sheegeen inaad meherkii dumarka ku qaaliyeysay adiga taasi ma ku muuqataa dumarku awalba qaali bay ahaayeen oo de awalba maaragtay de meherkoodu wuxuu yahayna waa lagu meherin jiray yarad badanna waa laga bixin jiray oo 100 geel iyo barqab iyo waliba qori baa gabdhaha laga bixin jiray marka anigu mid waxa weeyaan quality-ga hablaha dib loo dhimay hore loo maaragtay hoos loo dhigay inaan kor u soo qaado uma arko dhibaato kii ka andacoonayana waxa weeyaan kulleeto ha ogaado hooyadii inanta la dhalatay iyo tuu dhali doonay bayna yihiin gabdho qaali nimanka qaar waxa laga yaabaa inaan bixin karin maxaad iyaga tala ahaan siin lahayd gabadhna way rabaan inay guursadaan mana awoodaan inay ka bixiyaan lacag intaas leeg ama geel intaas leeg kulleeto ilaahay baa quraanka ku yiri laa yukalliflahu nafsan qofkii aan awoodin ma awoodo gabadh Soomaaliyeedna u maleyn maayan inay de already jeebkiisa og tahay waxa aan u qaadi karin inay saari doonto meherku sideedaba ma aha kaftan waa deyn lagu leeyahay waxyaalaha xataa culimada qaar baa ku oranaya ma so labada qof ee heshiinaya jeebkooday og yihiin dad kulleeto kalgacayl iyo nolol maaragtay isku darsanaya weeyaan u maleyn maayo gabadhinimay og tahay maaragtay hayntiisa inay waxaan u qaadi karin ay saari doonto waata Safiyo raalloho waan kula kaftamayaa horey guur baad u soo martay marka kuwii hore imise geeraad ka qaad wallahi horta ani geel iguma soo guursanin laakiin waxa weeyaan de meheradaydii hore lacag bay ahaayeen lacagtii leena waxa ahayd mid la siin jiray bay ahayd oo maaragtay aan hore u soo qaatay bay ahayd waa runtaayoo guurar kale soo maray mana ahayn de mid amba public amba de xoolo nool ma ahayn wuxuu ahaana waxaan de markii aan kala tagnay la isiibay waa tahay arooskaagii baan wax yar ka weydiinaya waxaad u soo labisatay qaab ka duwan sida ay Soomaalida aroosyadooda inta badan u dhigtaan maxaad ku xulatay labiskaasi faadumay horta
annagu horta dharkani ma ahayn mid aanu xulanay oo annagu maad aragtay aanu soo talanay ma ahayn say Soomaalidu ogeydba lamaana ka soo jeeday qoomiyadda Amxaarada oo aanu fahminahay ayaa horta xafladda noo qabtay dharkana iyaga noo soo talay oo noo keenay annaga cabirka baa la naga qaaday markii la natusayna waxay noqdeen dhar aanu ku qanacnay oo aad u qurux badan dhar aad u qaali ahna marka horta dharku saas buu ahaa waxaan u mahad celinayaa Fuad Alamurow iyo xaaskiisa Magles oo ahaa lamaanihii noo sameeyay xafladda Fuadna sidoo TV-ga ka sheegay nin aanu qaraabanahay oo Cabdullaahi habar wadaag yihiin iyo xaaskiisa ayaa horta noo sameeyay dharku horta walaal macaan saas buu ahaa dharde maad aragtay diinta iyo dhaqanka wax u dhimayana ma ahayn wuxuu ahaa dhar asturan oo aad u qurux badan marka dharku walaalo su'aashiisa hadaan ku soo gaabiyo saas buu